aan idiin sameynay. Website-kan waxaan ugu talagalay in dhammaan ganacsatada alaabahooda ay ku ganacsadaan, macaamiishuna halkan ay ka raadsan karaan shayga u baahan yihiin. Marka qaybtan hadda eegayna waxa weeye sida ciwaan looga samaysto. Ciwaan marka laga samaysanayo mobile ahaan haddii laga isticmaalayo sidan oo kale waa loo arkay. Meesha ciwaanta ay ku qoran tahay waa la geli karaa. Haddii laptop laga isticmaalayana sidan oo kale ayaa loo arkay. Xagga kore iyadana waa la geli karaa. Meesha marka lagu dhufto kadib waxaa kuu soo baxayo haddii aad ciwaan leedahay ciwaankaadi xaggan aad ka gelaysaa. Haddii passwordkaadi waad ku gelaysaa. haddii aad isdiiwaan gelinaysana sidoo kale qofka macaamilka sidan u isdiiwaan gelin. Qofka raba inuu iibiyo noqdo iibiyo buu ku dhufanayaa. Markuu ku dhufto bahashana dhaqaaqayso. Markay dhaqaaqdo form yar wuxuu soo dhigayaa buuxintiya. Xaggan waxaad gelinaysaa emailkaada. Tusaale ahaan hal email oo emailada ka mid ah baan gelin. Kadib markii aan xaggan u soo gudbo emailkii wuxuu u dirayaa marka code xaqiijinaya in emailka uu jiro iyo in kale. Fariintan cagaaran buu soo qoray oo ah code-ka xaqiijinta ayaa loo diray emailka aad qortay. Markii emailkii baa la furi. Marka la furo waxaa ka soo dhaxbaxayo code gaaban oo ilaa dhowr xaraf ka kooban. Code-ka waa la gelin. hadda mobile-kan yara furanaya. Mobile-ka code-ka ii soo baxay waxa emailkayga markaan galay sidan oo kale buu noqon. Markuu noqdo hadduu soo gaarin code-kaas waad laba diri kartaa. Mar labaad buu emailkaada u dirayaa. Kadib magaca bakhaarka waa la gelini. Magaca bakhaarka midka doontaa dhigi kartaa Hebel Electronics. magacaas oo kale hadda new brand haddaad magacaada u yahay oo kale. Telefoonkaada oo kaleeto waad gelin. telefoonka aad leedahay marka sidan oo kale marka loo geliyo password baad iyadana gelinaysaa. Marka passwordka markaad gelinayso iyadana saas oo kaleeto waad ku laba celin si aad u xaqiijiso passwordkaada inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn. waana qaybaha keentay in passwordada inta badan la xifdiyo markaad ku laba celiso. Hadduu passwordkaada daciif yahay daciif buu ku dhihi inaad si yar adkayso u baahay. Marka la adkaynayo eray iyo waxyaabo kale ayaa lagu dari karaa. Xarf weyn xarf yar baa lagu dari karaa. Isdiiwaan geli baa dhihi. awoodda eray ku galka sirta ah waa in ay noqotaa ugu yaraan mid wanaagsan. Hadda daciif buu hadda yahay. Marka xaraf kale haddaan ku darayno wacan wuu yara yahay hadda. hal xaraf baan ku yara daray. Kadib markaan isdiiwaan geli dhaho hadduu cilad yar ay yara jirto isaga ii sheegi isagoo af Soomaali wax iigu qorayo. haddayna cilad jirinna toos buu usii soconayaa. Diiwaangelinta si guul leh ayaa u soo dhamaatay. haddaad passwordkaada ku save garaysanayso laptopkaada waa kartaa. haddii kalena waad iskaga sii socon. marxaladahan oo istaabyo kala duwan oo la buuxinayaba iyo kuu soo dhigi. haddaad rabto waad buuxin kartaa. haddii aad rabtona waad iskaga tegi kartaa. oo hadda ma aha intaa dhahdo hadhow waad gadaal ka buuxin. Marka hadda waxaan tagnay ciwaankeena waan tagnay. ciwaankeena markaan tagno halkaa sawir haddii la gashado sawirkiiba kuu soo baxayo. qaybahan kala duwan buu leeyahay. qaybahan kala duwan alaab haddaad soo gashanayso kale alaabta meeshay ku qoran tahay ama calaamadda yar ay ku qoran tahay waad taaban kartaa. kaartoonka way markaad taabato sidan ugu dhaqaaqo wuxuu ku geynayaa muxuu ahaa hadday alaab kugu jirtay way soo socotaa ku leeyahay. wax alaaba kuma jirta hadda. laakiin haddaa alaab cusub ku darayso waad kartaa. calaamadda kaartoonka u eg haddii mobile laga fiirinayo iyo kuu soo dhigi. markaad saa ugu dhufato foomkii yaraa ee alaabta laga buuxinayay buu kula aadi. foomka marka halkan ciwaanka alaabta ay ku qoran tahay magaca alaabta la gelinayaa. qiimaha iyadana xaggan la gelinayaa. qiimihii hore u ahaa hadda qiimo dhimis samayso qiimaha dambe. xaggan sawir baad soo gashanaysaa. sawirka shayga alaabta uu leeyahay. xaggan iyadana waxaa lagu qorayaa sharaxaad gaaban oo alaabtaada iyo noocay tahay ka sheekeynayso. haddaa sharaxaad dheer u baahantahay oo kale xaggan baad iyadana isticmaalaysaa.
kadib qaybahan kala duwan waa la isticmaali karaa. Haddii aad intaa waxayso marka u dambeyso gudbi baad dhihi. Gudbida markaa dhacdo alaabtaad sidaas ku gudbeysaa ayna soo galaysaa alaabaha suuqa yaallo.